sodhawaada qaar ciyaariyahan gali doonaa xalay waxaa dhacay Carabao Cup kulamo aad markaasi loola yaabay ayaa la ciyaaray Man City xalay way ku deysay Tottenham ee dhagaha u laabta 2-1 ayaa markaasi looga badiyay dhanka kale waxaa xalay markaasi la reebay ayagana Newcastle ay reebtay naadiga Chelsea oo ayagana koobkan Carabao Cup-ka laga reebay waxaa kaloo jirto in naadiyada Arsenal iyo Liverpool iyo Manchester United ay guulo iskugu jawaabeen gool xalay Ruud van Nistelrooy oo ah coachka markaasi ku meel gaarka Manchester United oo 5-2 kaga badiyay naadiga Leicester City oo waliba dar xoogan ku soo gashay garoonka Casemiro oo 2 gool dhaliyay Bruno Fernandes oo 2 gool dhaliyay Garnacho gool kala dhaliyay oo 5 gool ay ku badiyaan waana mid markaasi la leeyahay odaygu waa wacdareeyay xalay si wanaagsan ay u dabaaldegayeen marka dad fara badan waxay qabaan sida Paul Scholes oo kale in loo sii daayo ninkan maxaa la yiraahdaa Van Nistelrooy in waqti la siiyo muddo bil ah si markaasi tababarahaasina asaga halkaas ku sugan Ruben Amorim oo asagu fursad u yeeshay in naadiga Sporting Lisbon oo Man City Arsenal kulamo ay markaas leeyihiin inuu la ciyaaro asagana oo sii manage gareeyo ninkan Van Nistelrooy la sii tijaabiyo si oo markaas naadiga Manchester United oo isku muujiyo hadii lacag oo fiicnaadana asaga in loo magacaabo taas ay dad badan qabaan walow Solskjaer markuu imaanay oo legend Manchester United ahaa in markaas markii uu yimiday isla markiiba 5 uu ku badiyay si naftigiisa oo kulamada ugu horeeyay wacdara oo dhig dhowr kulan kadibna ciyaarihii hoose u dhaceen dadka markay wax isweydiinayaan Erik ten Hag wuu tagay 5 goolna ma soo dhalin sanadkan iyo sanadkii horeeyay see ku dhacday markii 5 gool dhaliyay Erik ten Hag kulankiisa ka horeeyay 2 loogu badiyay Manchester United dadku wax isweydiinayaan waa ciyaartooyda dhibaatada ugu badan markaas ay haysato Manchester United ma ahin macallin ma aha macallinku wuu xumaan karaa laakiin falsafadii mid la mid ah ayuu ku ciyaaray Van Nistelrooy teamka xalay waxay u dheelayaan si firfircooni leh oo dagaal oo jabhadeen ah oo cidiyaha ku dagaalamaya hadana gamekii marka arkaysay oo laga badinayay 2-1 looga badinayay waxa way qaabka u ciyaarayeen qaab awood badan ma ahayn oo West Ham ay ka badinaysay qaab waxa way daciifnimo u ciyaarayeen marka waxa dareemi kartaa in ciyaartooydu ay doonayaan in tababaraha la ciyaariyo mar walba tababaro yimaado in la ciyaariyo Manchester United taas ku jirtana horumar kama gaarayso marka isku adkin waa la sameeyay oo Manchester United Tottenham ay ku dhacday waxa kale in kasto Arsenal iyo Brentford ku adaadeen maxaa la iyo Newcastle laakiin qoladan hada Tottenham ay qoorta loo geliyay xaaladdu marka ma sahlano Carabao Cup-ka quarter final-kiisa soo xiisayo si yeelanaya dhanka Premier League hadaan fiirino xaaladii ugu dambeeyay Premier League isbuuc dambe ayaa la ciyaari doonaa oo hada waxa lagu mashquulsanaa ciyaarahan Carabao Cup-ka marka sabtiga xadda ay markaas ciyaaraha badan la ciyaari doonaa Van Nistelrooy waxa la tijaabi doonaa haday suuro gasho maalinta Axadda wuxuu la ciyaari doonaa naadiga Chelsea oo markaas Ruben Amorim inkastoo leeyahay imaan doona kulankaasi inuu manage gareeyo waa laga yaabaa hadana waa 50-50 waxa leeyahay odaga inuu Janis kale helay laga yaabaa si uu teamkaasi markaas u sii waxay Alexander-Arnold wuxuu leeyahay Real Madrid ayaan aadayaa naadiga inuu ka tago ayay noo badan tahay tababaraha cusub ee Manchester United imaan doona Ruben Amorim wuxuu sheegay 4 ciyaartoy oo san doonayeen sida Casemiro iyo Anthony iyo ninka lagu magacaabo Victor Lindelof inuusan u baahnayn oo lagu sii daray Eriksen afartaas ciyaartooy midkoodna uma baahna ay yiraahdeen iridana way ka sii dhici karaan waxayna raadsan karaan kooxo kale taas ayaa markaas laga soo xigtay tababaraha cusub oo laga yaabo in Manchester United loo magacaabo marka waxa kale oo jirto in hada tababarayaasha intooda badan ee markaas xaalad ku soo xidhantay kaliya ay ku soo aruurtay in tababarahaas uu imaan doono walow dadka qaar ay leeyihiin Nick Van Nistelrooy waa wacdareeyay Janis la siiyay ayadana arki doonaa hadii Janis la siiyay hadii kale toba kulanka Axadda ayaa la qiimeyn doonaa hadana Manchester United wixii iska bedel ama sidii barnaamij shirkada meel fogna gaarsiin barnaamijka Malaysia kulan doona xadilaanahay fi amaanillah